السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو ورما سومالي ويني أرنتي عشرة هورا نكون شيئا كويل سوماليي حوق وحنها أنس أوجين سبحان الله. علم حمضة علم الآنتر لباتوين كلا ذا هاي حوق إلهي نسي ومجيدو وهالكلي المرودية وحوقيس ومجيدو سومالي دانا نقول حن المرودية وكل حوقين ومجيدنا انت ناسون مليون أدونك كل فرقصا حوقا لين اسمنا عرقنا إله سومالي حوق ودتوس إله سومالي حوق ودتوس markaad waxay idin kala sheegayaa dawladahan khaliijka waxay yihiin isay kala yihiin taariikhooda iyo annaga waxaan kala baranaynaa. Cumaan waa soo qaadanay laba yaa inoo ah imaaraadka. Imaaraadoo maxaa tahay? Waa dawlad carbeed kana kooban ururo waarta ka dhoo isu taga imaaraadka. Waa dawlado ama ururo isu tagay gobollo isu tagay. Haddoo saa inagu nahay Jubbaland, Somaliland, Puntland, Kanland وياريدو wax fiican isugu tagi lahayn wax samaysan lahayn sidaan oo kale waxay ku taalaa bariga jasiiradda carabta ku taalaa barigeeda koonfur galbeed waxa ka xiga Aasiya waqooyi galbeed waxa ka xiga Qatar galbeedkan waxa ka Sacuudiga ka xiga ay la wadaagto dhul xir iyo bad Cumaan waxay ka xigtaa koonfur bari oo iyadana intiiba la wadaagto dhul xir iyo bad goorma imaaraad xorowday waxay xorowday 1971 anaga 11 sano xorna markaas xagee ugu sareysa imaaraad dhulkeeda jabal jiis ugu sareeya ala badda markii loo fiiriyo sath al-bahr waxaana u hooseeya khaliij al-arabi imaaraad masaaxadeeda intay tahay 83,600 kiiloomitir oo isku wareeg ah imaaraad oo dhan wixii yaqaanay wixii ku noolba 4 saacadood waa iyadoo dhanba baabuurka 4 saacadood ka koone anagana intee saacadood aan nahay caasimadeedu waa Abu Dhabi dadka imaaraadka tirakoobka u dambeeyo la sameeyay 2018 wuxuu ahaa dadka tiradooda 9,599,353 qof وأفر سنة هذا أول رشان أنقلنا بلا دمان كهر هذا وسيبته أنت اسميقا إماراتينا وخليجك وحني ردد بدنو أجانب وكنول أنت اسميقا إماراتينا إماراتين وحاء إماراتين محلا دتك ودك وشد أنا عم كله صومالي تسكنول أنت صومالي ساسو كليته واي إمارات وحكي لهم مودينا يعني وأنت كله صومالي تستي أنت صومالي أنت أفريكانا انت أجنبية وأنا قلت أصله لك الإمارات كوالبية 10% كيبا يعني 5 مليون يلح بقل إمارات كوا مليون يلبب بقل تضبيل 4.6 وهندي 5.8 ويوروب 10.7 وباكستان 9.5 وبنغلاديش 6.1 وفلبين 6 وسريلانكا 2.2 waa Chinese 14 kaleeto 14 halna waa Afrikaan dadka kale dheen waa Afrikaan sida suuyo saymarta Asian wala keenay Europe wala keenay Afrikaan oo adama meesha isdhigtay waa nidaamkooda muxuu yahay nidaamkoodu waa nidaam sheekh ah waa nidaam boqortooyo laakiin boqor lama dhahayo sultaan lama dhahayo sida Cumaan waa sheekh yaa sheekh ah Kuwait هي قطر هي إمارات الشيخة بحرين وبقر سعودي وبقر عمان وسلطان كويت هي قطر هي إمارات والشيخ شيخ قرآن النقانمة هكذا والشيخ بقر وكلا هذا هو الشيخ ويلكس والشيخ هو كل والشيخ شيخ نظام كذا نظام سنة بقرطوي ذا إمارات حيسكوهات سجال إمارات أول waxaa ku jirtay Qatar iyo Bahrain iyo Abu Dhabi Dubai Sharjah Ajman Ras Al Khaimah al Qaywin oo Fujairah sagaalkaasi ahaayeen Qatar iyo waxa ka baxay Bahrain toddoba hadda isku yihiin Abu Dhabi caasimaddiya Dubai lambar 2 ah Sharjah lambar 3 ah Ajman Ras Al Khaimah al Qaywin oo Fujairah toddoba hadda isku soo hartay markay kooxda dadka xornimada qaateen goorma isu tageenay hal boqor yeesheen kala googosteen xukunka 2 December 1977 sheekhina waxa noqday boqorkii Sacuudiga oo noqday Imaaraadka
sheekh zayd allah naxariiste oo caasimadda abu dabay ah suuna ku noqday abu dabay way ka weyn tahay kana batrool badan magaalooyinka kaleeto dubayna waa ku xigtaa saasaa loo kala qaatay saddex jasiiradood leedahay imaaraadka waxaa haysta iiraan waxaa la kala dhahaa dambal kubra dambada yar iyo dambada weyn ee abu muusa xaggee ku yaaleen shaariqa markaad joogtid badda eeg nalalkooda waa muuqdaan iiraana haysata shaariq hadday noqoto ama imaaraad oo dhanna awal waxay ahayd dhulkii cumaan oo hore cumaana siisay maadaama dhul weynay lahaayeen lacagta imaaraadka maxaa la dhahaa dirham doolar muxuu dhigmaa marka dirhamka halkii doolar waa 3.67 dirham 3.75 riyaal sacuudi waa halkii doolar cumaani muxuu ku yahay 38 riyaal waa riyaal sacuudi riyaal cumaani iyo riyaal qatari saddexdaas riyaal isla wata kuwait iyo baxrayn waxay wataan diinaar imaaraadna dirham saasay 60 u kala yihiin qatarna waa 3.74 qatari riyaal kuwaitna waa 0.31 eber dhibic 3 kuwaiti diinaar 3.38 eber faasil 3.8 na waa baxrayn diinaar marka maxaa neer 3.3 lacag kala yihiin kuweeda u sareysa baxrayna ku xigta cumaana ku xigta markay baxray hadda 3.638 tahay cumaan 3.9 noqonay markay tan 3.7 ta adiga waxa uu kala dhaxeeya sida sacuudiga iyo qatar hadda 74 iyo 75 u kala yihiin hasu kala qad baxrayn iyo cumaanna 1 u kala dhaxeeya hadda maxaa jira way oo dubay kusoo barbaariyay kusoo carariyay dawladaha afrikaanka waaye tartan hadda waxaa ku jira la soo gashay dubay riyaad waagooda kale markay 6 oday fariistaan waxay dhinteen waxay noolna waa nool iyo markay wada fariistaan waxay kala goosan jireen ama ay kala qaybsan jireen khayraadka maadaama ay batrool soo wada saaraan saxara ay wada fadhiyaan nin walba xaldaa adiga maxaa qaadanay aniga waxaan qaadana adiga maxaa qaadanay adiga waxaan qaadana dubay marka waxay qaadan jirtaa imaaraadka baayac mushtarka saasay hab u noqotay ay dunidihii shirkadihii waaweynaa ay wax walba u yimaadeen kuwii kale faray ka laabteen haddaad damanta masqad shirkadaas waaweyn sida dubay jooga ma joogaan sacuudiga sidoo kale kuwait wala ay ka lacag adag yihiin nina waa heshiisyo odayadii dhex maray waa la kala dambeeyaa hadda sacuudiga yiri aniga ugu wadan weyn aniga ugu batrool badan aniga saane anaana u lacag yar saa u jeedid 3.75 lacagtooda iyaga u lacag yar see ku dhacday marka waa inaan ka kaca hurdad tartan ee la gashay riyaad dubay tartanka yaa leedahay way adkaanaysaa akiid riyaal adkaanayso ka lacag badan oo ka batrool badan wasiirka batroolka sacuudiga oktoobar 2021 hadda waxaa kasoo wareegatay 13 bilood wuxuu ku yiri shirkadii reer galbeedka batroolada iyo qoraaye iyo ka shaqeynaya sacuudiga laakiin xafiisyadooda ay dubay ku taalay wuxuu ku yiri 2023 shirkadii aan soo galin sacuudiga aniga ii soo raadsan caqad ama contract ay soo raadsan oo batrool ina ii qodo ama dahab ii soo saarto waxa iga soo doonaan waxaad ku khasban tahay qof walbo iga rabo contract ama caqdi iga rabo inuu wadanka gudihiisa soo galo haddaad soo galayna iska ilow sacuudi wax la dhaho waa nooc min hanjabaad lacag oo kale ah shirkadihii waa shirkado business ah waa americano raas almaaniyo capital ah lacagtooda u daran dubay iyo sacuudi maxay u kalta nin badantiisu yaqaanay dadka Soomaaliya kala dantooda aqoon hadda waxaan joognaa November 2022 maxaa ka soo wareegay 13 bilood la 23 January maxaa dhiman wali 2 bilooda dhiman hadii ilaahay nafta noo daayo 4 shirkadood baa already soo galay sacuudiga oo ay ka mid yihiin Reuters, PepsiCo, BWC, KMBJ, Doilet, Unilever, Samsung, Siemens, Dimension, Data, Tim Horton, Halliburton, Philips, Novartis, Johnson Control, Schlumberger waa shirkado waaweyn oo reer galbeed American
ingiriis faransiis jarmal waxay soo galeen riyaad xaggee laga imaanaa dubay 500 oo shirkadooda startup ama shirkada bilow ahna waa la bilaabay sacuudiga laga bilaabay waxaa ka mid ah Baker Hughes Lilly Saab Bank and Medtronic Saab Bank muxuu yahay waa bank HSBC qaybta sacuudiga ah sacuudiga waxay qorshe kula jirtaa ama qorshaheeda uu yahay 7,000 oo shirkadood inay soo xareyso 10 sanadood 7,000 oo shirkadood oo shirkada wada waa maaha shirkadba shirkaday ka weynta adduunka inay riyaad ku soo xareyso Dubai marka ma la tartami kartaa sacuudiga may waa nin 30 jir iyo wiil 2 jir ah sida tartami karaan shaqo isku ma laha Dubayna 140 shirkadood ay 30 sano soo xareynaysa 30 sano 30 sano inaga asxaabul kahfigan ah 140 shirkadood soo xareysay sacuudigana 44 already 480 waxay bilaabeen 44 kaas already waaba soo wareegeen 480 hadda wax shirka warqadoodii u socdo may soo finalize gareeyeen laakiin way soo dhameystireen oo wax u wareegayaan riyaad marka riyaad waxay noqonaysaa Dubai maalin cad ay indhaha bus kaga shubay xoog dhaqaale xoog dad quwa shiraa'iya oo ah shirkad walba inta wax ka gadanaysa suuq ahaan already shirkada Chinese iyo waxa lagu soo wareejiyay Sacuudiga amaantanba shirkadaha yimid oo Chinese iyo sameynay baabuurta marka tartanka hadda leeno hadda dhaqaaliya soo wad xumaaday nin walba waxa waaye Allahumma an nafsi nin walba dhaqaaleyga rabaa maxaan iga galay adeerina aftima socdo marka Soomaaliya kaca Soomaaliya walo ana u maleynaa aad kacaysiin halla kaco cilmi darada dhibaatooyinka leedahay waxa ka mid waxay hadda inaga imaaraadka ka rabtaa gobol dekadaheena waxay rabtaa inay gadato ay lacagteedii isku dheeli tirto yani marka shirkadii baxaan shirkadii ijaarkay bixinayeen guriyihii la deganaa suuqyada ka adeeganayeen waxaas oo dhan ku soo baxaya yaa bixinaya Betwaria anaga nala dhahaa wariya khaliijka wixii yaqaana ku noole marka Soomaaliya hurdada laga kaco imaaraad de shilin ku siiso kun ay ka soo ceshanaysa marka iyada shilin ku siiso kun askarna way qoras dadka islaam mushaar lagu siinaa wadankaaga joogta oo khayr leh shaqayso Soomaaliya la isku xirmo meel walba la joogo khayr badan ay rajeynaya cawada waxaan jeclaysan idin la wadaago macluumaadkan 4 dalo dhimanna waa idin soo sheegaya hurdada laga kaco Soomaaliya hurdada laga kaco khayr badan ay rajeynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh